koox dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sweden ayaa magaalada Stockholm waxay ku soo bandhigeen nooc cusub oo xawaaladeed iyo nidaam dalka Soomaaliya looga sameyn karo mashaariic horumarineed oo wax ku ool ah. Kooxdan dhalinyarada ah oo sanadkan ku guuleystay laba abaalmarin oo dhinaca ganacsiga iyo fikradaha cusub ah ayaa kulan qada sharafay oo ay ku casuumeen qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Stockholm. waxay ku soo bandhigeen habkan cusub ee casriga ah ee qofku lacagihiisa uu ku dirsan karo qiimo aad u jaban. shirkadan waxaa la aasaasay 2015 waxaana laga aasaasay magaalada la yiraahdo Örebro. shan dhalinyaro oo Soomaaliya ayaa la aasaasay oo aan mar dhow geli doono magacyadooda. shirkadan ujeedadeedu waxa weeyaan in runtii lacago horta waxaa la diri jiray muddo 50 ama 100 sano dheeraad meelaha. marka in hab cusub oo lacag loo diro oo aanu qofku xafiis iyo inuu telefoon qabsado iyo inuu meel la xiriiro ayaan doonay runtii inaan ku soo dirno suuqa. markaan aragnay inay baahidu jirto waqtigan xaadirka maadaama ay dadku imanka telefoonada la yiraahdo smartphones iyo wada wataan iPhone iyo Samsung oo kale wuxuu qofku runtii xor u noqon karaa inuu keligii ismaamulo. Transfer Galaxy waxay tahay xawlaad online system ah. qofku waxa uu markii hore lacagaha qaabka u dirsan jiray aanu ka bedelay waxyaabo badan. waxyaabahaasna waxay kamid yihiin qofku inuu xor noqdo isagoo gurigiisa joogo lacag dirsan karo amaba isagoo dalkii hooyo joogo inuu maanta lacag soo diri karo. halkii markii hore ahayd inaad qof la soo hadasho aad tiraahdo lacag baan dirayaa walaal ii soo dir lacagtii. laakiin maanta adiga ayaa xor ah oo lacag isu soo diri kara. oo waxaanu kaga duwanahay shirkadaha kale oo waxa aragtiyaha aan u la nimay halkan sababtan u joognaa waxa weeye in maanta qada sharafkan aan u sameeynay in shirkadda waxa leedahay madaxdeedu waa macaamiisheeda. marka inaan dadkii casuno oo aanu qada sameeyno oo aanu sheekaysano oo dadkii isbarano shirkadda yaa iskale shirkaddu maxay qabataa waa in reer Stockholm ay fahmaan sababtaas ayaan maanta halkan u joognaa. marka waxa weeye waxa unique aanu kaga duwanahay shirkadaha kale. qofkii maxaan u xaynay waa lacagtii iyo waqtigii. hata uma baahnid inaad telefoon qabsato tiraahdo lacag baan dirayaa walaal eelkayga baan dirayaa lacagtii iga dir. website-kaad galaysaa adigoo si degan isdiiwaan gelinaysaa haddaad diiwaan gashatana si qurux badan u diraysaa. marka $100 haddii aan soo gaabiyo macnihiisu maanta waxaanu ku diraynay 936. waxaanu qaadanaa khidmad 4 kron. 4 kron oo qura ayaad ku diraysaa lacagtii $100. Absolutely 4 kron baan qaadanaa khidmadda. maamulka shirkadda Transfer Galaxy ayaa sidoo kale goobta waxay kaga dhawaaqeen in 2 bilood faa'iidada ay helayaan inay ugu deeqayaan gurmadka abaaraha ee dalka Soomaaliya iyaga oo dhinaca kalena soo bandhigay nidaam cusub oo mashaariic horumarineed looga sameyn karo gudaha dalka Soomaaliya iyadoo la dhiirigelinayo beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. waxaan u kalifay maadaama dad Soomaaliyeed nahay maadaama aan aragnay dadkayga dhibaateeysan maadaama aan aragnay dadkayga maanta gaajo u dhimanaya in anaguna aan macaashkayga la gabano aan macaashkayga jabadii ku jiraysa wana siin weydi. runtii khidmadii yareed oo baanu qaadinaynay waxaan ku talagalnay 2 bilood ee soo socda inaanu dadkayga maanta ku taageerno. waxa se taa noo dheer inaanu qorshe la nimaadno oo maanta dadka Soomaaliyeed aanu fikir la nimaadno aan raahno war qorshahani ma soconayo maanta in dadkeena maamul bay baahi u dhintaan ma soconayo balse waa in aragti la nimaadno waa in dadkeena aynu baahida ka saarno. baahiyahaasi waxay u baahan yihiin dad aqoon leh aqoontii iyo adduunkii labadiiba la garab taaganay maanta. dhalinyarada waxaanu sheegayaa waa idin taageersanahay waana in la idin taageero waana idin bogaadinaynaa waa ku faraxsanahay bikulli saraaxa guul baan u arkaa inoo soo hoyatay oo aynu ku faani karno hawsha aad qabateen. shirkadaha mulkiga oo ah ummadda Soomaaliyeed oo misla hadii shirka ay kamid tahay shirkadan iyo kuwa kale oo dhanba in ay isxilqaamaan ay u garab istaagaan ummadda Soomaaliyeed sida ay u garab istaageen shirkadan khayr Allah siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waxaan ka baryaynaa inuu barakeeyo maalkeeda shaqadeeda hawlaheeda inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeeyo. marka nin kasta oo fikirkan oo kala sameeya oo e-tackling-kan maaragtay dunidu gaartay dhinac ka qabsada waa inaan abaalmarinaa. abaalmarintiisu marka waxay tahay shirkadaha iyo bulshadu way isku baahan yihiin. haddii adinku aadna jooginin u socomaysa shirkadu. marka sidaas daraadeed abaalmarintu waxay tahay ducada iyo lacagta aan dirsanayno oo aan ku dhiirigelin ayay ka dirsan. khidmadaas yar ma ahane
wax kale naga qaadi maayaan lacagteena waxay gaaraysaa meeshii aan la rabnay horta waa arrin aad u wanaagsan aan kusoo qayb galnay maanta magaalada Stockholm xaflad aad u weyn ka dhacday ee xawaalada Transfer Galaxy wallahi waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhiiraday in ay sameeyaan ganacsi aad iyo aad u fiican iyo xawaalad aad u fiican oo ka fudud xawaaladaha kale si dhaqsiyaana qofka uu ku heli karo البرقسة وسكوهلي كرسوه مالك سأدون كجوج هرتا وأرين آدي وناكسن أكسر قبل قبل ما أنت مقالة ستوكهولم حفلة آدي ونا كل عضي حوالد ترانسفير جالاكسي والله وحنا لا يودلني الصومالية كل يرضي إن أي سميان أنا عسي آدي آدو في عن يحوالد آدو في عن fikradan cusub ay soo bandhigeen dhalinyaradan Soomaaliyeed ee ah Transfer Galaxy ayaa waxa u riyaaqay dadka Soomaaliyeed ku dhaqan gudaha wadanka Sweden kuwaas oo lacagaha si fudud ugu dirsan karo eheladooda iyo qaraabadooda Cabdiraxmaan Xudayfi raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Stockholm Sweden